هيسان مقالة مقدشو ما أنت صدحات ببرنامبحيان قايد لي ورمقوقي عربتها هالكن كداي warlaag dishin Soomaaliga ay tahay kar hajriya lu waayay warka naga dhex gelinine way hore markii gaadlada barnaambaxaan madaxba u jirto waxay ka cabanayaan kala hadli jirtay hadda saddex maalin cid joogto haba yaraatay ma jirto war aanel wal mooshidi BLA dhagaha gaasa ka jaran maamulkan dhagaha inta ka jaraysan iska seedo koran madun war ma aysiin gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu hel saaray gudi la hadla gaadileeyda war gudoomiyuhu sida uu sheegay gudigu u saaray arintaas wariyayaashii la xirana uu soo daayay wuxuuna sheegay inuu kala xaajoonayo wixii ay tabanayeen laakiin sagaayadadu waxay balaayo ku dhigeen maalin baxaafal cusub ay ka bilaabayaan banaanbax marka xagee lagu kulmaya ayaga gurgurayo gudiga ka daba meeraysanayeen warnimada gaadiidleyda banaanbaxaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Facebook ugu qudbeeyay wuxuu yiri kacdoon shacab waa loo baahan yahay banaanbaxa wada war may leeray uun koona alalaase waleeri Cabdiraxmaan Cabdishakuur nimantum iyalka bilan waaysiin wala usata ka sii shukaamiyaa uma ay arada BLA waxay ka cabanayeen jidadka xiran waaye anshuur keenana waa la yiri meelay maraan waa waayeen hadii Cabdiraxmaan Cabdishakuur asiri banaanbaxa wada jidadkana inta dhima hadaa la sii xirxira waxa banaanbaxa wada waa kirishbooyaal shaqo waayay ayay war ma sida qabaarmo waa tahay madaxda carabta waxay ahayd rooti qaaliyowe iyo dad shaqo waay war kacdoonkii gugi carabta saxaafada boonboonisa la yiri waxa hadda wariyaasha loo xirayana waa inaan codka shacabka la maqal war madaxda markay xilka doonayaan wariyaasha aad ay u jecel yihiin markay xilka helaana wariyaasha aad ay u naxbiin war may siin lahaa wariyaalka Soomaaliyeed ee sabareen sinid iyo inay googo aan dhimanayo bali jeelad doonay aadan isaaqo war ma aysiide shinkii dheeray mar hore la siibay horta kalamaanay anigu waydan la yaabana dad damiir leh oo wadaniyiina oo dadka hore u naxa ma waadan ahayna war ma aysiide dawladda 4.5 loo qeybay war qodobka 8 tobnaad dastuurka akhrisanayo war wadanida sanadkan wax kala waayano ariifo caadiska dhigsadooda ku qaadano wax markay yiraahiina banacay aryaadahan mafrahaydan galaana warka halayga dhigansado weydinka banaanbax iyo jidad la xira iyo BLA iyo ka sheekay haaye dadkan heer beled weyne ee biyuha iyo webiga ku banaan baxeen ma waadan arkina war maanta ay ugu daraydo madaxdii gobolka iyo degmada iyo ganacsato iyo mas'uuliin kale ayaa inta doon raacday ay la qalibanto ilaa hadda 20 qofood la leeyahay dhimasho iyo nolol war horta beled weyne dhibaato ka taagan dadka Allah ka badbaad amiin biya beledkiyo dhan qabsadee ilaahay how yasiro dadka amiin inta ku dhimatana Allah oo naxariisto amiin inta ka fakatana ilaahay ha caafiyo midana idin sheega heer beled weyne inta dabaasha taqina webiga koro u celsho intaan dabaal halka aqaanina waati tiin badan asay dhulka ku dhegdhegeen asay ku leedeen nuga webiga waxa lagu eedeeyay inuu qabyaalad sameeyo oo dadka qaar kor u siisido qaarna tiin bihayo dhulka hoose hooya isku shiixa oo hadii dabaashii bara waysan oo mugubiga tadana dad amal oo la hadlaysiin eedeynayso qabyaalad ku eedeynaysin arhooy isku xishooda booyaalo waxaan idin weydiina maxaa kuwan kale webiga la yumbiyo haya arwoobaha berga webiga allagu uma loolina laga aamusaha dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa madax iyo majaba magaalada beled weyne ee dhamaanteed biyuu ka saran mareen yaan la daawan magaaladaas iyo dadkaas ee haloo gurmado anigu waxaan intaas ku dari lahay mug waa abaar mugna waa aarane maanta aarankiya dadki asiibayo eber ka dhigay abaartii aaran keenaya afeysay umadii dhamaan abaartii aaran keenaya afeysay umadii dhamaan waraada war maaysaan maanta aqalka sare wuxuu ansixiyay sharciga xuquuqda siyaasiyiinta siyaasi Soomaaliyeed xuquuq la miyaa jira ma Soomaalida mishaar la siin kara Soomaalida waa siyaasiyiin war Soomaalidu ma gaarnay haan hasaaniid le wala siya wala gaari arar xasaasiyada aad sheegaysi inta diga dhaaftiin barfaltar difla hadle warkayga maqla asaga waxda sida daawiyakaas ara warkaan ka dhameystay shib iga dheh waxa sida siyaasiyiin xaqooda ka hadlaysiin dadkiina biya dhameeyo ma ka sii war Sarkar Axmed Xaashi wuxuu yiri bal cadiyafku midna ma tagi kare xuquuqda aan leeyahay maxay tahay war ninkaas waaba dheeraystay huruay xataa ma tagi kar ma dhaw war gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi meequlaha dadka loo gurmado hadii war laga yeelayo hore waxa loo yiri hadii hal waaye la yeeli lahay waxar dawaca ma cunteen war Abdullo adin hal waaye ay faday aaranka kumi gooy waysana war waa
adaa gardaran war laga taga calooshii wareegtay waxbaa ka dhiman nadaafadaada ilaa aad isticmaasho oomada iyo saabuunta B29 xubinta kalamaan ay ahayd xubinta kalamaana waa gabagabadii barnaamijka kulankeena oo idaacadda kulmiye ee muqdisho aad ka dhageysanayseen tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa heesta warmoog ee Siciid Miraxaydar